محمد صلى الله عليه وسلم وكا أمد بدباده نبي محمد وكا إله إن بري نبي محمد وكا عرك إيرك إسكو حري نبي محمد وكا أخلاق وناكسن إنه ليمي نبي محمد وكا مبدغي قال لمدي إن دالي إذن اللي قتشري إنك صاري نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد أياك قرح بدنا نبي محمد أياك وناكسنا نبي محمد أياك عقلي بدنا نبي محمد أياك سبب بدنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحان كلنا هاي يا رسول الله فداك أبي وأمي أنت يا رسول الله هو يا أبو يا وحان جعلنا هاي يا وح والبا رسول الله وانكو غفرانينا وانكو جعلنا هاي رسول الله وحيكا قادم جيرو جعيل كاو نفط أيو نغا جيرا شرك أيكم بحدلالة يا رسول الله فداك أبي وأمي أنت يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال عربت وحي أهايين ضد أن تاريخ حضارة مدن أن لهين waxay ahaayeen dad ku nool dhulkaas saxraaga ee lama degaanka ah dad adhi jiro ah geel jiro ah ayay ahaayeen waxay ahaayeen dad badowa oon waxna akhriyin waxna aan qorin ayay ahaayeen waxay ahaayeen dad islaaya isku laaya biatfahi alasbaab wax aan micno lahayn ayay isku leyn jireen kooga xooga badan kooga daciifka ah wixiisa ayuu qaadan jiray hablaha ayay nolosha ku aasi jireen iyaga oo nool iyaga oo laceeb iyo faqirtinimo ayaan ka cabsanaynaa awgeed dhexdooda xumaan oo dhan baa ku faaftay zinadaa ku faaftay anshaxa xun baa ku faafay waxaa ku faafay alcasabiya alqabaliya in ay qabyaalad iyo qurun u dagaalamaan walaalayaal dadka oo sidaa ku jira carabta oo xaaladaa ku sugan oo 360 sanam caabuda kacbada agteeda 360 sanam ayaa yaala iska daa inta guryaha وتعالى dadka foosha xun ee badowda ah ee qiimo lahayn ee taariikh lahayn ee islaaya ee sida u foosha xun ayaa dhaxdooda waxa ka dhashay nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa alladhi ba'atha fi al-ummiyin rasulan min rasuulkaas dhaxdooda laga soo saaray rasuulkaasi ومن إلهي الدورتي وربك يخلق ما يشاء ويختار إلهي أيها الدورتي إلهي أيها برباري إلهي أيها كورهي إلهي أيها إلالي نبيغاس عليه الصلاة والسلام وحوءها تدك كأقول نسب كفيعا كأقول شرف دبضا أيها كأقول أخلاق دواناكسا كأقول الكفيعا أيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد وحا أكرش أسرة ليلهدو الأسرة الهاشمية نبي وحا يلي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل إلهي وحا أكدرت أولادي النبي إبراهيم أدري أولادي نبي إسماعيل أي إلهي كدرت أولاد النبي إسماعيلنا كنانا أيا لقى دورت كنانا إلهي وحا أكدرت قريشنا ريب بن هاشم
nebigu waxa uu yidhi anigana ilaahay reer banu haashim ayuu iga dhex doortay. walaalayaal, rasuulkaasi ilaahay ayaa doortay. ilaahay baa dhammaystiray akhlaaqdiisa, dabeecaddiisa, quruxdiisa, hadalkiisa, fahankiisa, dulqaadkiisa, ammaanadiisa, dhinac walba wuu ka dhisnaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. markay ka yaabeen asxaabtu waxay ku yidhaahdeen rasuul allow ayaa ku edbiyey. nebigu waxau ihi adabanii rabbii fa axsana ta'diibii. ilaahay baa ii edbiyey, edebteydana wanaajiyey. weligii nebi moxamed ma zinaysan, weligii nebi moxamed khamri ma cabin, weligii nebi moxamed wax ma xadin, weligii nebi moxamed wax ma dilin, weligii qimaar ma ciyaarin nebi moxamed, weligii sanab uma sujuudin, weligii been ma sheegin, weligii qof ma khaayinin, weligii xumaan laguma arag. wuxuu ahaa dadka oo dhan ka ugu akhlaaqda badan, ugu dabeecadda fiican ayuu ahaa, ka ugu weji qurux badan ayuu ahaa nebi moxamed. wuxuu ahaa ka dadka ugu qalbi nadiifsan ayuu ahaa. weligii wax ma xaasidin nebigu, weligii naftiisa uma aargudin nebigu calayhi الsalaatu wasalaam. nebigu wuu qurux badnaa, wuu ilka caddaa, wuu weji furnaa. sidaasuu ahaa nebi moxamed. ilaahay baa doortay. ilaahay baa khalqiga oo dhan markuu basharka u abuuray nebi moxamed buu ka doortay. ka dadka ugu fadliga badan ayuu ahaa basharka oo dhan. basharka ilaahay markuu abuuray ambiyadiisa ayuu ka dhex doortay. ambiyada waxaa lagu tiriyaa 124 nebi. nebiyaashana ilaahay waxa uu ka sii dhex doortay rusushiisa 315 rasuul ayay ahaayeen. rusushiina ilaahay waxa uu ka sii dhex doortay kuwa la yidhaahdo ululcasmi min arusul. waa nebi nuux, waa nebi ibraahim, waa nebi muuse, waa nebi ciise, waa nebi moxamed. shantaana ilaahay waxa uu ka sii dhex doortay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. dadka oo dhan khalqiga ilaahay uu abuuray ee bashar oo dhan ka ugu fadliga badan ayuu ahaa nebi moxamed, uu ilaahay ugu jecel yahay ee ilaahay ugu dhow. walaalayaal, ilaahay baa doortay. wallaahu aclamu xayثu yajcalu risaalatah. ilaahay baa risaaladiisa iyo diintiisa nebiga u doortay sala allahu calayhi wasalam. ilaahay baa ammaanay, ilaahay baa edbiyey, ilaahay baa barbaariyey, ilaahay baa ilaaliyey oo xumaan oo dhan ka ilaaliyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kitaabkiisa u doortay oo ku soo dejiyey qur'aanka kariimka ah. maxaa loo doortay nebi moxamed? inuu dadka ilaahay baro. waxaa loo doortay nebi moxamed inuu dadka shirkiga iyo mubdiga iyo gaalnimada uu ka saaro, islaamnimada u saaro. waxaa loo soo saaray nebi moxamed in dhulka iyo cirka la isku xidho ayaa loo soo saaray. nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wanaagga iyo khayrka ayuu dadka ugu yeedhayey, xumaanta oo dhan buu uga digayay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam. nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam maanta gaaladu ay caayayaan. nebi moxamed wuxuu ahaa nuur, nebi moxamed wuxuu ahaa akhlaaq. nebi moxamed ayaa ka maskax badnaa, nebi moxamed yaa ka fahmad badnaa, nebi moxamed yaa ka nadiif badnaa. nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam qoraxda cadceedda xataa uu ka qurux badnaa. ilaahay qoraxda markuu sheegayay cadceedda, ilaahay waxau yihi wajacalnaa siraajan wahaaja. waxaan ku sugnay buu ilaahay yidhi samada oon dhignay cadceed. siraaj waa iftiin, wahaajan oo hollacaysa, iftiimaysa, wax gubaysa. laakiin nebiga ilaahay muxuu ku tilmaamay? wasiraajan muniira. waa iftiin wax nuurinaya buu ilaahay yidhi. wax nuurinaya, wax ma gubayo, waxbuu nuurinayaa. yaa ayuha الnabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wamubashiran wanadiiran wadaaciyan ilى اllahi biidnihi
وسراجا منيرا وناقو النبي قدتك ويريا جنو دتك بشارينيا حمانتو ugaddigaya naar buu ugaddigaya nabigu calayhi salaatu wasalaam mar walba oo nabiga u dhawaatid sunnadiisa u dhawaatid akhlaaqdiisa u dhawaatid diintiisa u dhawaatid nuur iyo iftiin iyo wanaag iyo xasilooni ayaad u dhawaanaysaa mar walba ood ka fogaatidna waad baaba'aysaa waad halaagsamaysaa meel xun baad ka dhacaysaa walaalayaal rasuulkan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aanka haddaad akhridid waxaad arki nebi walba ilaahay magaciisa ugu yeedhayaa nebi aadam ka soo bilow yaa aadam uskun anta wazawjuka aljanna nebi ibraahim yaa ibraahiimu qad sadaqta aru'ya nebi nuux yaa nuuxu hbit bisalaamin mina nebi daawuud yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan nebi muuse يا موسى إني أنا ربك نبي عيسى يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس لكن قرآنك كأركي ميسد يا محمد يا محمد كأركي ميسد بروحات كأركي يا أيها النبي يا أيها الرسول يا كأركي سا حتى النبي مجي عيسى هدي الله شيء رسول بالراعينيا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلهي بايري محمد رسول الله والذين معه ولا ليال وحالو قدقي ضدك إن النبي محمد أكتيسا كل واقان عدك كل قادان يا محمد إن يدهدان أو السيدة لحظة أسكوية نؤكل أوية النبي إلهي وحاويري يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي نبي محمد مركز الله اللسان عدك نيونا كسرين باليري عدك النبي عليه الصلاة والسلام كأدب سدى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض بركين ببركة كالسدى عدك كل أقوق هذا اسكوي يردان سدى النبي هؤلاء دغمنا كأدب سدى وكي لهي دورتي وكي رسالة دودي إسئلالية ليلي عدك كرها أقادنا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى عدك هوس أدقى أيا ليلي كو عدك كرو قادة إن الذين ينادونك من وراء الحجرات يا محمد عربتي بدو أهد محمد الناس أبح كو أسيوحا ليلي وحبا مقارنيا أكثرهم لا يعقلون وحبا مقارنيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي بايري كإدب سدا ورسولك إلهي وكي إنيقو خير كبضنا وكي إنيقو فضلك بدنا وكي إنيقو دلقات كبضنا كإدب سدا نبي عليه السلام ولا ليال نيوم والبقو عانا هداد سوقا دي التاريخ ليس أدبادد وحبوكو عام بحي لكن وحيالا بضن أيو كدع سنة نكي اللي أراني شيكسبير هداد سوقا دي في ميدان الكتابة وحالي حريف فوقها لكن ما ربضا بابا أبوك نابليون هدا سوقادي في القوة العسكرية أدبو يقاني لكن لنا عقل صفر بوكاها غاندي هدا سوقادي في مجال السياسة نعم لكن ما ربضا صفر بوكاها فولتر في الفكر لكن ما ربضا صفر بوكاها حتى أنبياء دي إلهي وصدري إلهي ودورني لكن وحي عانكو أهايين قاركود صفات بقاركو أي عنكو أهاية نبي عيسى عليه السلام وحلقوا يقان زهدي إيا ورع أيا لقوا يقان نلوشيسا لكن مقوس النبي عيسى عليه الصلاة والسلام سيدا أوجد كقد ينكر ميسيد قابك أبوه علمه سأولا دقميو أما قابك أنينكو هوين دي سأولا دقميو نبي عيسى كقد ينكر ميسيد لأنه مسو قوسن سيدنا سليمان عليه السلام waxaad kaga dayan kartaa الشخصية الحاكم العادل الغني الشاكر لكن من نقن مسكين فقير من نقن للضعيف صدق من نقن كقد يكرم ميسيد ما شاء لكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم لنع والبا وصومري وحاس أردن إيو لنع والبا كقد ينسى إلهي بعد السيد إلهي با قرحيي إلهي با هفي
ilaahay baa hagaajiyey, ilaahay baa ilaaliyey. nebi maxamed dhinaca jihaadka marka qaa'id buu ahaa, ciidan idil hogaamiye. dhinaca salaada imaam idil buu ahaa. dhinaca zuhdiga alcaabid buu ahaa. dhinaca daaci buu ahaa nebigu, murabbi buu ahaa, xaakim buu ahaa. dhalinyarnimuu soo maray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo la wada garanayo noloshiisa iyo taariikhdiisa. aab buu ahaayo awlaaddiisa siduu la dhaqmayo dumarkiisa la wada garan. sheekh buu noqday, qof weynoo waayeela oo lagaga dayan karo. caabid buu noqday, maxkuum buu noqday oo la xukumo. wuxuu noqday faqiir buu nebigu noqday, agoon buu noqday. intaba nebi maxamed uu soo maray sala allahu calayhi wasalam. walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadiisa nebi walba sifa lagu ammaanay, sifo astaan baa lagu ammaanay, calaamad baa lagu ammaanay. ilaahay nebi ibraahim waxa uu yidhi wadkur fi lkitaabi ibraahiima inahu kaana sidiiqa nabiya. sidiiq ayuu ahaa, runbadne. nebi muuse ilaahay muxuu ku ammaanay wadkur fi lkitaabi muusa inahu kaana mukhlasan wa kaana rasuula nabiya. mukhlasan buu ahaa, taasaa lagu yaqaana. nebi ismaaciil ilaahay muxuu ku ammaanay wadkur fi lkitaabi ismaaciil inahu kaana saadiqa alwacd wa kaana rasuula nabiya. ballantu aad u ilaali jiray. nebi idriis ilaahay muxuu ku ammaanay wadkur fi lkitaabi idriis inahu kaana sidiiqa nabiya. sidiiq inuu ahaa ayuu ilaahay ku ammaanay. ilaahay nebi walba sifuu ku ammaanay. laakiin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam gebigiisuu ilaahay ammaanay. ilaahay wuxuu ammaanay indhihiis. habeenkuu micraajka samada markii la geeyey meelaha muu khawisi jirin, muu eegi jirin, hoosta wax kama eegi jirin. maa zaaga albasaru wamaa tagaa. laabtiisuu ilaahay ammaanay. maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa. caqligiisuu ilaahay ammaanay. maa dalla saaxibukum wamaa gawa. sharcigiisuu ilaahay ammaanay. wamaa yantiqu cani ilhawaa. carabkiisa ayuu ilaahay ammaanay. in huwa ilaa waxyun yuuxaa. macallinkiisuu ilaahay ammaanay. callamahu shadiidu lquwa. ilaahay waxa uu yidhi magacaaga rasuul allah kor baan u qaadanay. warafacnaa laka dikrak. ilaahay dabeecaddiisa oo dhan ayuu nebiga sheegay. wainaka lacalaa khuluqin cadiim. dabeecadaha darajaad bay leedahay. aduu baa la yidhi rasuul allah wainaka adigu lacalaa khuluqin, dabeecadtii ugu saraysay ayaad ku sugan tahay. bal ibnu cabaas radia allahu canhu waxa uu leeyahay ilaahay qof noloshiisa kumuu dhaaran siduu nebi moxamed noloshiisa ugu dhaartay. waxau yihi maa xalafa allahu bixayaati axad ila bixayaati muxamed. ilaahay muxuu yidhi lacamruka, nebi allow noloshaadaan ku dhaartay. inahum la fii sakratihim yacmahuun. baadidaasay ku indhalaayihiin buu ilaahay yidhi. ilaahay waxa uu xidhiidhiyey hanuunka haddii aad doonaysaan nebi maxamedun dabagalaa yidhi wain tuiicuuhu tahtaduu. wain tutiicuuhu tahtaduu. nebi maxamed haddaad dabagashaan umaad hanuunaysaan buu ilaahay yidhi. bal ilaahay wuxuu le ka digtoonaada nebi maxamed inaad khilaaftaan. falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaab aliim. walaalayaal, rasuulkaasi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa shakhsiya mutakaamila, buuxda. ilaahay baa buuxiyey. acdam insaan uu ilaahay soo diray buu ahaa nebi moxamed. munqida albashariya, bashariyadda oo dhan kii badbaadiyey ayuu ahaa. nin faylasoofa oo ingiriisa ayaa waxa uu oo bernadeer la yidhaahdo ayaa waxa uu yidhi wa araa waajiban an yudcaa muxamed munqida alinsaaniya. waxaan arkaa in muxamed loo bixiyo munqida alinsaaniya, kii ummadaha badbaadiyey, bashariyadda oo dhan kii badbaadiyey. wuxuu yidhi mashaakilkan maanta adduunka jira maxamed oo kale hadduu jiri lahaa wuu hagaajin lahaa, laakiin ma jiro. waina rajula kashaakilatihi إida tawalى zicaamaة alcaalam اlxadiiث lanajaxa fii xalli mushkilaatih. moxamed
mashaakilkaa maanta adduunka jira wuu xallin lahaa. saasuu leeyahay. walaalayaal, nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ummaddaa liidatay ee carabta uu ka soo baxay ee shalay aan qiimo lahayn, een taariikh lahayn, ee xadaaro aan lahayn, ee la oqoon, ee adhi jiraha, ee geeljiraha ah, ee islaaya, waxa uu ka dhigay ummad nool. waxa uu ka dhigay ummadaha jirta. waxa uu ka dhigay khayra ummatin ukhrijat linnaas, ummadtii ugu khayrka badnayd ee dadka loo soo diray. nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa kaa ummadda badbaadiyey. nebi moxamed waa kaa ilaahay ina baray. nebi moxamed waa kaa cirka iyo dhulka isku xidhay. nebi moxamed waa kaa akhlaaqda wanaagsan inoola yimid. nebi moxamed waa kaa mubdigii iyo gaalnimadii iyo indhali'idii lagu jiray inaga saaray. nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. nebi moxamed ayaa ka qurux badnaa. nebi moxamed ayaa ka wanaagsanaa. nebi moxamed ayaa ka caqli badnaa. nebi moxamed yaa ka sabir badnaa. nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaan ku leenahay yaa rasuula allah, fidaaka abii wa ummii anta yaa rasuula allah. hooyo iyo aabbo iyo waxaan jecelnahay iyo wax walba rasuul allah waanu kugu furanaynaa, waanu ku jecelnahay rasuul allah. wax ay kaa qaadi ma jiro. jacaylkaagu nafta ayuu nagaga jiraa, jirka ayuu ku dhex dhalaalayaan rasuul allah. fidaaka abii wa ummii anta yaa rasuul allah. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.